Taj Mahal ama Taj Mahal sidoo kalena la yiraahdo qasriga boqortooyooyinka waa qasri ka samaysan dhagax cad oo aad u adag isla markaana ku yaala dhanka koonfureed ee wabiga Yamuna ee dalka Hindiya gaar ahaan magaalada Agra. Minaaradihiisa dhaadheer, albaabadiisa cajiibka iyo naqshadiisa guud ayaa ka dhigtay mid ka mid ah dhismayaasha ugu caansan ee loo dalxiiso. Muuqaalkan ayaana soo koobaya xogaha ugu muhiimsan ee qasrigan ku saabsan. Taj Mahal waa raadka ugu quruxda badan ay ka tageen maquulkii hore, waxayna quruxdiisu laba jibaarmataa kolka ay qoraxdu soo baxayso iyo marka ay dhacayso. Haddii aad dhanka wabiga ka eegtana waa mid u muuqda inuu xiran yahay. Waxaa amray in la dhiso qasrigan imbiradorkii maquulka ahaa ee Shah Jahan. Sababta uu amray in la dhiso qasriganna waa mid ku qotonta qiso jacayl. Boqor Shah Jahan xaaskiisii uu aadka u jeclaa ee Arjuman Banu Begum loona yaqaanay Mumtaz Mahal ayaa geeriyootay ayadoo foolanaysa cunugeedii 14aad ee lagu magacaabi jiray Guhara Begum. Waxaana la sheegaa boqorkii muslimka ahaa ee Shah Jahan inuu aad uga murugooday geerida xaaskiisa uu aadka u jeclaa, ilaa uu markii dambe go'aansaday inuu u dhiso qasrigan si uu u muujiyo jacaylka uu u qabo. Wuxuuna qabrigeeda ka dhex dhisay isla qasrigan. Sidoo kale wuxuu qasriga ku magacaabay magaceeda ah Mumtaz Mahal, balse muddo kadib waxaa magacii asalka ahaa ee Mumtaz Mahal loo bedelay magaca haatan la yiraahdo ee Taj Mahal. Dhisidda qasrigan waxaa ka qayb qaateen shaqaale gaaraya 22,000 oo qof iyo 1,000 maroodi oo soo qaadayeen qalabka lagu dhisayay. Waxayna isugu jiraan dhagaxda lagu dhisay 28 nooc oo kala duwan, isla markaana laga kala keenay meelo kala duwan sida Shiinaha, Afghanistan iyo Hindiya dhexdeeda. Joogga sare ee dhismahan ayaana gaaraya 50 mitir, wuxuuna leeyahay 4 minaaradood oo ayaguna jooggoodu gaarayo 137 feet. Ustaad Ahmed Lahori oo ahaa Farisi ayaa ah nashqadeeyaha iyo midkii u sareeyay injineerada dhisay dhismahan. Waxaana dhismaha Taj Mahal si rasmi ah loo bilaabay 1631 ayadoona la soo gabagabeeyay sanadka marka uu ahaa 1643, halka gidaarka ku hareeraysan iyo jardiimada Taj Mahal la dhameeyay 5 sano kadib. Dhismahan beerta uu ku fadhiyana badkeedu waa 300 mitir isku wareega, taasoona u qaybsanta ilaa 4 qaybood oo ay dhex marto barkad dheer oo lagu magacaabo Kawthar. Taj Mahal waxaa sidoo kale lagu aasay boqorkii dhisay ee Shah Jahan kadib markii uu ku dardaarmay in lagu aaso xaaskiisa. Taj Mahal waxaa ka dhisan masjid weyn, waxayna sheegaan taariikhyahanada qaar inuu masjidkan dhisay nin lagu magacaabi jiray Ciisa Muhammad. Waxaana ku yaala masjidka hortiisa barkad ay dadka muslimiinta ah ku weysa qaataan. Gudaha masjidka waa mid aad loogu xardhay aayadaha iyo magacyada Alle, waxaana mar qura ku wada tukan karaan masjidkan 569 ruux. Sidoo kale waxaa ka dhisan Taj Mahal guri lagu soo dhaweeyo dadka caanka ah ee booqanaya. Dadka caanka ah ee booqday dhismahan taariikhiga ahna waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton iyo xaaskiisa Hillary Clinton. Sidoo kale waxaa ka mid ah dadka booqday madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo jilayaal caan ah sida jilaaga Hollywoodka ee Tom Cruise. Laakiin dhismaha ugu badan ay booqdaan dalxiisayaasha waa dhismaha qabuuraha. Taj Mahal waa mid ay yaqaanaan 3 meelood meel guud ahaan dadka adduunka ku nool, kuwaasoo isugu jiraan kuwa maqlay, kuwa muuqaalkeeda iyo sawiradeeda arkay iyo kuwa booqdayba. Dadka booqda ee u dalxiisa sanadkii ayaana lagu sheegaa 7 ilaa 8 milyan oo qof. Dhismaha wajiga hore ee Taj Mahal wuxuu gaarayaa dhirirkiisa 30 mitir, waxaana la dhameystiray sanadka marka uu ahaa 1648. Waxaana xusid mudan albaabka dhismahan in lagu xardhay qaar ka mid ah aayadaha Qur'aanka Kariimka. Waxaana la sheegaa boqor Shah Jahan inuu ku amray injineerada dhisay dhismahan in ay dhisaan dhismo aan sidiisa oo kale dib loo dhisi doonin. Wuxuuna dalabkaasi ciidiyaha ka soo saaray shaqaalihii dhisayay dhismahan, maadaama cadaadis la saaray si loo qanciyo boqorka. Laakiin maanta waxaa dunida ku yaala dhismayaal leh nashqadda Taj Mahal oo kale, isla markaana ku kala yaalaan Bangladesh, Mareykanka iyo Shiinaha. Qarashkii lagu dhisayna Taj Mahal wuxuu maanta la mid yahay $1 bilyan. Waana dhismo midabkiisu isbedbedelo waqtiyada kala duwan ee maalintii. Sidoo kalena waa dhismo ku yaala Hindiya, laakiin ah astaan iyo ilbaxnimo weyn oo ay leeyihiin guud ahaan dadka muslimiinta ah.